Qisada Abraha waxaa sababteeda ahaa waxaa jiray nin boqor ah oo ka mid ah boqorradii hore ee Yemen soo xukumi jiray. Ninkan waxaa la odhan jiray boqorka Dunwas ayaa la odhan jiray. Wuxuu ahaa nin Yahuudi ah oo Yahuudinimadana aad iyo aad ugu adag. Intaa kadib ayaa waxa uu maqlay dadkii reer Najraan ayaa Yahuudnimadii ka tegaya oo Kristaan noqonaya. Arrintu markay sidaa ahayd ayaa waxa uu bilaabay inuu amar ku bixiyo in godad la qodo. Dabcan ciidamadiisii godad ayay qodeen, godad aad u waaweyn. Godadka dab ayaa lagu shiday, dab fara badan baa lagu shiday. Wax alla wixii Yahuud ahaa ee Kiristaanka noqday oo dhan ayuu isu keenay, bartaasuu ku gubay. Waatii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka kaga warramayay qutila asxaabu lukhuduud annaari daati lwaquud. Taariikhdu waxay sheegtaa dad tiro yar inay ka baxsadeen, laakiin dadka meesha lagu gubay waxay ahaayeen ilaa 20,000 oo Yahuuda, isla markaana Yahuudnimadii ka tegay oo diinta Kiristaanka qaatay. Maantoodna halkaas ayuu ku gubay. Haddaba dadkii tirada yaraa ee ka baxsaday ciqaabta, nin ka mid ahaa oo la odhan jiray Daws ayaa wuxuu qayladhaan ugu dhuftay boqorkii Ruum. Wuxuu ku yidhi noo soo gurmo oo naga soo gurmo Dunwas oo dadkii Kiristaanka ahaa ku gubaya waddanka Yemen. Boqorkii wuxuu arkay hadduu sidaa u gurmo inay waqti dheer qaadanayso. Waxa uu yidhi waxaan waraaq u dirayaa boqorka Xabashida Najaashi ayaan warqad u dirayaa, isagaa idinku dhow, isagaa idinka gargaaraya. Warqaddii waxay gaadheen Najaashi. Najaashina ciidan fara badan ayuu diray oo aad iyo aad u awood badnaa. 2 nin ayuu uga dhigay hogaamiye ciidanka inay hogaamiyaan. 2 nin buu ku yidhi ciidanka hogaamiya waa idinka u gargaara dadkaasi Yemen lagu xasuuqayo. Odayaal fara badan wuu soo raaciyay oo marwadiga ugu weyn waxaa la odhan jiray Maxamuud ayaa la odhan jiray. Ciidankii wuu soo dhaqaaqay, dhulkii Yemen ayuu yimi. Dunwas ayaa maqlay inay ciidan yimaadeen, ciidan u gargaaraya dadka Kiristaanka ee magaraysa isagu uu gubay. Ninkii Dunwas ahaa wuu cararay markaa, waxaana uu cararay dhanka iyo badda. Markii dambena waxaa la yidhi badda ayuu ku qarqoomay ninkaasi. Ciidankii Xabashida ahaa waxay la wareegeen caasimadda Yemen ayay la wareegeen, ayagaana ka talin jiray. Akhiiran markii dambe iyagu way iskhilaafeen, labadii hogaamiye ee Aryaad iyo Abraha way iskhilaafeen. Ninkii Aryaad ahaa waa la dilay, waxaa soo hadhay Abraha oo qura. Maamulkii magaaladoo dhanna isagoo ayuu ku soo wareegay, isaga ayaa magaaladii mas-uul ka noqday. Intaa kadib Abraha wuxuu sameeyey indhayn ayuu ku sameeyey waddankii uu magaraysaa la wareegay ee Yemen. Wuxuu ogaaday inay jirto Kacbo, beydka Ilaahay ee barakeysan ee Masjidul Xaraam. Wuxuu ogaaday inay dadku ay Maka u soo xajaan oo xagga Maka ay qabtaan waqtiga xajka. Aad buu uga xanaaqay arrintaas, wuu ka xumaaday. Waxaanu yidhi waxaan dhisi doonaa kiniisad aad iyo aad u weyn oo kiniisadda adduunka ugu quruxda badana oo aan iyadoo kale weligeed laga dhisin arlada. Dhismihii kiniisadda dabcan wuu dhameeyey, waxay noqotay kiniisad dhammaystiran. Aad buu u qurxiyey, Qulays buu u bixiyey magaceeda. Kiniisadda weyn Qulays buu u bixiyey. Najaashigii isaga soo diray ee Itoobiya joogay Xabashiga ahaa ayuu waraaq u diray, waxaana uu waraaqda ku qoray ayuhal malik laqad banaytu laka kaniisa lam yubna mithlaha qad. Boqoroo waxaan kuu dhisay kiniisad ayaan ka dhisay Yementii aan tagaadi dirtay, aan iyadoo kale weli laga dhisin arlada. Waxaana igu kalifay inaan kiniisadda dhiso markii aan arkay dadkii Kiristaanka ahaa oo ku soo xajaya Maka u xaji doonanaya. Waxaan ila noqotay inaan kiniisaddaasi ku dhiso si ay dadku u soo xajaan ay u yimaadaan kiniisadda. Kiniisaddana magaceeda Qulays ayaan u bixiyey. Waa kiniisad aad iyo aad u qurux badan. Kadib arrintan Najaashi wuu ku farxay, wuxuu yidhi waa arrin wanaagsan, sidaas samee, dadku waa inay ku soo xajaan kiniisadda weynaad ka dhistay Yemen. Abraha waa sax buu yidhi, waan samaynayaa, sidaasaan samaynayaa. Dadkana kama ogolaanayo inay u soo xajaan beydka Ilaahay ee Maka ku yaalla, waa inay u soo xajaan kiniisadda. Dadkiina arrintii way isgaarsiiyeen, arrintii waa la maqlay. Dad fara badan, qabaa'il fara badan ayaa u soo xajay kiniisaddaasi Qulays uu dhisay ninka Abraha. Dad fara badan ayaa u soo xajay. Arrintaasi waxay gaadhay dadkii reer Maka
ayaa waxay dareemeen dadkii xajka imanayay inay kala dhinmeen. Kadib waxaa la ogaaday arrintan uu sameeyey ninka Abraha la yidhaahdo. Dhalinyaro reer Maka ayaa markaasi waxay yimaadeen Yemen bay yimaadeen. Kadibna waxay garanaysaayay kiniisadii ayay galeen goor laga maqan yahay oo laga baxay. Waxaa la sheegaa kiniisadii inay waxyaabo fara badan ay garanaysaa ay ku sameeyeen. Mar waxaa la yidhi saxaray marmariyeen, way gubeen, meydna way ku dhex tuureen. Subaxii Abraha ayaa yimi wuxuu yidhi man facala haada, war sidan yaa sameeyey. Waxaa lagu yidhi waxaa sameeyey inamo reer Maka oo dhalinyara ayaa yimi si aanu ka shaki qabno ayaga markaa waxaan sameeyey. Wuxuu yidhi maxay markaa doonayaan? Waxaa la yidhi waxay doonayaan in kiniisadan la burburiyo oo loo soo xajo Maka. Abraha aad iyo aad buu xanaaqay, wuu dhaartay, masiix buu ku dhaartay. Wuxuu yidhi waxaan dumin doonaa Kacbada ay doonayaan in loo soo xajo ee la sheegay inay ku taalo magaalada Maka. Kadib waxa uu diyaarsaday ciidan aad iyo aad u xoog badan, maroodiyaal fara badanna wuu ka haystay oo maroodiyaasha dagaalka ayaa loo kaxaysan jiray. Maroodigii ugu weynaa ee Maxamuudna wuu hor u sii watay. Ciidankii wuxuu bilaabay inuu dhaqaaqo oo xagga iyo Maka uu dhaqaaqo, Maka uu ku jahaysan yahay. Markii ay Maka ku soo dhawaadeen waxa uu yidhi nin buu diray, wuxuu ku yidhi waxaad soo eegtaa ninka Kacbada maamulaya. Ninkii wuu tegey Cabdimudalib oo Kacbada maamulayay ayuu tegey. Laakiin markii uu dirayay ayuu waxuu ku sii yidhi ninka mawlaha ah ee Kacbada maamulaya ii soo kaxee. Geel Cabdimudalib uu lahaa oo Kacbada agteeda daaqayay oo 100 halaadana wuu dhacay. Abraha iyo ciidankiisii ayaa ka haystay. Dabcan ninkii wuxuu soo kaxeeyey Cabdimudalib buu soo kaxeeyey, Abraha ayuu keenay. Cabdimudalib wuxuu ahaa nin dheer oo cas oo aad iyo aad u qurux badan buu ahaa. Abraha wuu salaamay, si fiican buu salaamay, gogol buu u dhigay, wuu soo dhaweeyey. Wuxuu ku yidhi Cabdimudalibow maxaad doonaysaa? Cabdimudalib wuxuu yidhi waxaan doonayaa 100 halaad aad iga dhacdeen inaad i soo celisaan. Abraha arrintii wuu la yaabay, wuxuu ku yidhi adigana waxaan doonayaa Kacbadii aad mas'uulka ka ahayd inaan soo dumiyo, adiguna waxaad leedahay 100 halaad aad iga dhacday ii soo celi. Cabdimudalib wuxuu yidhi anigu geela aniga ayaa iska leh, Kacbaduna waxay leedahay ilaah bay leedahay oo ilaahay baa leh oo ilaalinaya. Abraha wuxuu yidhi Cabdimudalib geeliisa ha loo celiyo, Kacbadana aynu dumino oo beri salaada ayaynu ku kala haynaa. Cabdimudalibna waa loo celiyey geeliisii. Cabdimudalib reer Maka ayuu la hadlay, wuxuu ku yidhi ciidan bayna dul fadhiya, Kacbada inay dumiyaan bay doonayaan, innaga inooma socdaan inayna laayaan, laakiin si kasta way dhici kartaa ee magaalada inaga saara oo xagga iyo buuraha ina geeya. Cabdimudalib iyo reer Maka way ka baxeen, Kacbadii iyo Makaba way ka baxeen, buuraha ayay ka soo garaysay daawanayeen. Cabdimudalib ilaahay buu baryay, wuxuu yidhi ilaahayow rabbigayow meeshay u socdaan dadka cadowgii waa gurigaagii barakaysnaa, ilaahayow gurigaaga ka qabo. Ilaahayow anagu awoodaan ku difaacna ma lihin, laakiin adiga ayaa rabbiya, ilaahayow gurigaaga difaac. Sidaasuu Cabdimudalib ku ducaysanayay. 100 halaadee loo soo celiyey oo Abraha u soo celiyeyna qaar ka mid ah wuu qalay oo uu ku alli baryey. Waagii markuu baryey Abraha wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo ina dhaqaajiya, haddaba Kacbadaynu soo dumine. Maroodiyaashii baa la wada kiciyey, dhaqaajiya bay is yidhaahdeen. Maroodigii ugu weynaa ee Maxamuud la odhan jiray wuu istaagay. Markii xaggii Maka loo jeediyey wuu istaagay oo wuu dhaqaaqi waayey. Way garaaceen, biray ku mudmudeen, wuu dhaqaaqi waayey. Waxaanuu bilaabay inuu iska fadhiisto. Way kiciyeen, dhinaca kale u jeediyeen, wuu dhaqaaqay. Dhinaca hawd bay u jeediyeen, wuu dhaqaaqay. Waqooyi bay waxay u jeediyeen bari, wuu dhaqaaqay. Jihooyinkii kaloo dhan marka loo jeediyo wuu soconayaa, xagga Maka loo jeediyey wuu dhaqaaqi waayey. Iyadoo arrintaas la yaaban yihiin ay leeyihiin maxaa dhacay ayaa waxay maqleen guux bay maqleen xagga sare ka baxaya. Kor bay eegeen, waaba shimbiro sida daruuraha oo kale u socda. Arrintii aad bay ula yaabeen, maxay ahaayeen bay yidhaahdeen, waxaan oo kale weligeen maynu arag.
waa tii ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aanka kaga hadlayay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsala calayhim طayran abaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum kacasfin ma'kuul. shimbirahaasi shimbir waliba waxay sitaa 3 dhagax bay sitaa, mid afkay ku sitaa, labada lugood bay ku kala wadaa. waxay bilaabeen inay shimbiruhu dhagxaantii soo daayaan. ciidankii abraha mid kastoo ka mid oo dhagxaantaasi ku dhacdo, madaxa hadday kaga dhacdo dhanka kale ka baxaysay, lugta hadday kaga dhacdo dhanka kale ka baxaysay. waa dhagxaan naar ka samaysan oo bartay kaga dhacaan barteeda kale ka soo baxaya. ciidankii abraha halaag baa u bilaabmay, mid kastuu ku dhaco midbuu ku dhacaa, ka kaluu ku dhacaa, ka kaluu ku dhacaa, dhammaantood saasay ku madheen. waxaa la sheegaa abraha ayaa ka soo hadhay. abrahana mid baa ku dhacay, kadib wuu cararay, akhiiran wuu bararay, jidhkiisaa bararay, markii ugu dambaysayna wuu qarxay. cabdimutalib iyo dadkiisiina way soo noqdeen, waxay ku soo noqdeen maka, kacbadii bay yimaadeen. dadku aad iyo aad bay u ammaani jireen, waxay odhan jireen dadkani waa ahlullah, waa ehelkii ilaahay, ilaahay baa difaacay, waa dadkii ilaahay difaacay baa la odhan jiray.